magacaygu waa maxamed cabdi jimcaale maanta meeshan waxaan u joognaa waxaa iskugu imaatay koox 10 kooxood waxaana qaban qaabiyay guddida community-ga ugu horeeya Faisal Axmed wareegan waxaa loogu tiragalay isku imaanshaha dhalinyarada aad iyo aad ayuu muhiim ugu yahay because dhalinyarta waxa waaye waa meeshii ku kulmi lahaayeen waa meeshii ku baashaali lahaayeen meel kale lagu baashaalo ma jirto oo ka ahayn banoonigaas marka waxaan dhiirigelinayaa in hore loo sii wado wareega ku xigaba oo sii socdo oo dhalinyarta lagu mashquuliyo banooniga. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Magacaygu waa Ibrahim Maxamed Cali oo loo yaqaan Ibrahim Gelos waxaana kamid ahay community-ga mataqaana Queensland mataqaana dadka business ku leh Queensland waxaan kamid ahay dadka halkaan mataqaana ciyaartooyda halkaan joogan coach kamid aan ahay mataqaana maanta marka waxaan u joognaa wareega noo bilowday marka muhiimadda uu leeyahay banooniga dhalinyarta banooniga muhiimadda uu leeyahay waa isgalka bulshada isdhex galaysa kadib waxa kale muhiimadda uu leeyahay qofka mataqaana intuu meel kale waqti kale kulmin lahaa in mataqaana meeshan qof kasta gaari wataayo marka in qofka dhiido oo mataqaana ordo dadka mataqaana isgalka bulshada aad muhiim ugu tahay in mataqaana arintan oo kale la sameeyo. Okay, adiga businessman aad tahay hadana waxaad sheegtay inaad tahay coach marka maxaa kugu qasbay adigoo businessman oo mashquulsan inaad hadana maaragtay coach dhalinyarta u noqoto? Hadee waxa muhiimad waxa waaye meeshan aan joogno wadan qurbaan joognaa haddii aan dadka dhalinyarada aan isku dubino meel isku keenin dad kala duwayo meel kale aadayaan markaas awgeed mataqaana ay u qasbay inaan mataqaana aan dhalinyarada isku keeno oo mataqaana aan coach u noqdo oo mataqaana isku dubo. dadka soo qaban qaabiyay waxaan leeyahay mahadsan yihiin arintan arin loo baahan yahay waay markasta waa dhiirigelinayaa marka aadan u soo dhaweynaya arintan maanta sida quruxda badan ee noo muuqata maanta Jironiga ayaa noo bilowday sida quruxda badan ay u soo abaabuleen dhalinyarta Soomaaliyeed community-ga absolutely 100% isku xirka bulshada waaya community-ga sports-ka horumar in la gaarsiiyo ay ku fiican tahay dhalinyarta soo qaban qaabaysay sida madaxda sare waan salaamaya anigoo aan soo koobin magacyadooda boqolkiiba waan salaamaya oo aad ugu mahadsantiin sida soo qaban qaabaysay. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Magacaygu waa Maxamed Xasan Cismaan waxaan ka socdaa African Queensland Community waxaan maadnay maanta inaan daawano ciyaarahan quruxda badan ay qabteen community-ga Soomaalida waa arrin loo baahan yahay oo micnihii imaaday waqti saxan oo ku soo aaday waqtiga loo baahnaa waxaan ku bogaadinaynaa dhalinyarta Soomaaliyeed inay ka soo qayb galaan ciyaaraha inay daawadaan inay ciyaaraan in macna maxaa ku raadayay tiimamka la soo badiyo oo waxa weeye ma aragtay laga qayb gala banooniga waa waxa mideeya bulshada caalamka anigoo ah gudoomiye ku xigeenka African Queensland Community waxaan halkan ka cadeynayaa in aan mar walba u taaganahay ma aragtay caawinta ama saacidaadda dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkan Queensland ma aragtay in ay soo badiyaan iyagana ay dadaalaan oo ciyaarahan camal quruxda badan ay soo badiyaan isdhexgalka bulshada ee ma aragtay dadaalkooda la jabaaraan waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadkii soo qaban qaabiyay ma aragtay ciyaarahan quruxda badan ma aragtay dhalinyar Soomaaliyeed isugu soo baxeen aad iyo aad baa u mahadsantiin waxaan ku bogaadinayaa in ay soo badiyaan ciyaarahan camal insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo. Awalan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Magacayga waa Axmed Salaah Xuseen oo ciyaara kooxda saacidaadda waana wareega Somali community ay qabteen ma sha Allah maanta waa ciyaarta koobaad ciyaarnay hadda 2 eber ayaana lagu leeyahay waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaa dadka wareega soo qaban qaabiyay Axmed. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Magacayga waa Axmed Xasan waxaan kamid ahay qaban qaabiyaasha koobkan isdhexgalka bulshada loogu talagalay Somali KLD League loo magac daray waxaan halkan u joognaa waxa waaye in dhalinyarta madadaalino isdhexgal bulsho u sameeyno Soomaalida dhalinyarta Soomaalida ku nool gobolkan Queensland qaasatan magaalada Brisbane koobkan wuxuu socon doonaa sida la ogyahay koobkan wuxuu socon doonaa insha Allah ilaa 2 bilood. Bismillahir Rahmanir Rahim. Magacaygu waa Faisal Axmed waxaan ahay current president of Somali Community Association of Queensland maanta waxaan isugu imaanay wareeg aan ugu talagalnay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaaladan Brisbane in ay ka qayb qaataan wareegan waxaa ka qayb qaadanayo in ka badan 10 koox wareegan ujeedkiisa waxa weeye in maaragtay dhalinyarada ay isku arkaan banooni fiican ay wada ciyaaraan ay isku wareystaan maaragtay networking opportunity ay u noqoto
maaragtay xiriirkoodii iyo maaragtay aragoodii aan ku siyaadino hadduu alla idmo waxaan si qaasa ugu mahadcelinayaa dhalinyaradii iyo dadkii juhdiga qaaska geliyey la'aantood ma aysan dhacdeen in aan qabanqaabino barnaamij noocan ah